Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda ingiriisiga. Casharkan maanta waxaan uga hadlaynaa wada sheekaysi ama wada hadal ama sheeko gaaban oo laba qof sheekaysanaysa. Marka mawduuciisna wuxuu ku bilaabanayaa sida tan English small talk ayuu ku bilaabanayaa marka English small talk waxa la yiraahdaa wada hadal gaaban ama wada sheekaysi gaaban ayaa la yiraahdaa luqadda Ingiriisiga. Small talk waxa weeye wada sheekaysi gaaban. Marka bracket-kan waxaan geliyay conversation oo ah wada sheekaysi. Marka small talk iyo conversation yani waa isku dhow yihiin laakiin xoogaha macna ahaan way kala duwanaan karaan mararka qaar. Marka waxaan aanay mawduuca kor waxa dhahnay English small talk wada hadal gaaban ee luqadda Ingiriisiga. Marka waxa uu ku bilaabanayaa sida tan casharka waa laba qof oo wada hadlaysa marka sidaa darteed ayaan waxaan ugu dhigay A iyo B. Marka A ayaa hadalka bilaabaya wuxuu yiri Hi Mary. Hi waxaan dhahnay marar badan ayaan fasiray waxaan dhahay waa salaanta labada qof luqadda Ingiriisiga isku salaamayso ayaa waxa la yiraahdaa hi. Oh hi ay tiri marka oh waxa weeye waxay la mid tahay oh yani alla oo kale waaye ama waxay noqon kartaa yani wax adiga hadal qabsi ay noqon kartaa marka yaa lagu fasiri karaa. Oh waxa weeye yani haddii waan fasirayna dhahno wax lagu fasiri karaa allah oo kale noqonaysaa marka. Hey hi ay tiri markaas haddana waxa uu weydiiyey ayaa waxa weydiinaya how are you doing yani how are you doing waxa weeye sidee tahay. How are you doing how are you feeling noocyo kala duwan iyo siyaabo kala duwan lagu dhihi karaa marka how are you doing waxa weeye sidee tahay. I'm doing all right yani waan fiicanahay. I'm doing all right waxa weeye waan fiicanahay marka. How about you adna iska waran marka I'm doing all right waxa weeye yani I'm doing all right waxa weeye waan fiicanahay waa intaas marka waa nooc ka mid ah noocyada loo yiraahdo waan fiicanahay marka. How about you adna iska waran marka ama dhankaada ka waran oo kale waaye. How about you marka waa adna iska waran oo kale waaye. Not too bad muxuma macnaha not too bad waxa weeye xaalka muxuma oo kale ugu jirtaa marka not too bad muxuma ama yani waan anigana muxuma oo kale xaaladeeda muxuma. Marka sheekadii ayuu sii wada marka waxa uu leeyahay the weather is great isn't it. The weather wuxuu leeyahay hawada is great isn't it. Hawada waa ay wanaagsan tahay miyaysan ahayn yani the weather waxa weeye hawada is great waa ay wanaagsan tahay macnaha jawi fiican ayaa jira hawada way fiican tahay isn't it miyaysan ahayn marka. Sheekada ayuu wadaa marka wuxuu dhahay marka hore not too bad muxumi ama yani waan fiicanahay. The weather waxa weeye hawada is great yani waa ay wanaagsan tahay marka. Isn't it miyaysan ahayn su-aal buu sii daba raaciyay. Yes ay tiri yes ha it is absolutely beautiful today. Marka waxay tiri it's absolutely si aad ah iyo aad ayay maanta qoraxda jawiga yani u wanaagsan yahay marka intaas. Yes ha it's absolutely si aad iyo aad ayay it is waxa loola jeeda yani waxa loola jeedaa weather oo kale waa la qariyay. It is absolutely beautiful today marka aad ayay maanta u qurux badan tahay jawiga aad ayuu maanta u qurux badan yahay marka ama hawada ayraada absolutely waxaan ku fasiray aad iyo aad. Beautiful waxa weeye qurux badan today waxa weeye yani maanta waa marka markii la isku daro waxay noqonayaan intaasi wax lagu fasiri karaa kelmadaas wax lagu fasiri karaa hawada maanta aad ayay u qurux badan tahay marka
aad ay u wanaagsan tahay loola jeeda beautiful hadda ama u qurux badan tahay. I wish it was like this more frequently. Waxaan rajaynayaa marka inay mar walba sidan ay ahaato ay ahaan lahayd macnaha waxaan rajaynayaa ayuu leeyahay in mar walba sidan ay ahaan lahayd hawada marka yani hawada yani mar walba in sidan ay ahaan lahayd ayaan rajaynaya marka yani I wish waxa weeye it was like this more frequently. Waxaan rajaynayaa in waxaan rajayn lahaa marka in hawada mar walba noocan ay ahaato marka hawada maadaama maanta ay qurux badan tahay oo ay fiican tahay waxaan rajayn lahaa wish waxa weeye waa rajayn it was like waxa weeye inay ahaan lahayd macnaha sidan oo kale this more frequently macnaha noocan oo kale ah in mar walba ay noqoto frequently waxaan dhahnay wax joogto ah marka mar walba inay ahaato yani sidan noocan oo kale ah joogto ah. Me too ay ugu jawaabto marka bigi me too waxa weeye anigana sidoo kale waan rabi lahaa waa marka anigana sidoo kale waa intaas markii la fasiro. So where are you going now marka wuxuu weydiiyey marka so sida darteed marka where are you going now halkeed u socotaa hadda marka su'aal kale ayuu weydiiyey oo ah where are you going now halkee ayaad u socotaa hadda marka where waxa weeye halkee are you adiga going now at hadda u socotaa marka I'm going to meet a friend of mine waxaan u socdaa inaan la kulmo saaxiib a friend of mine waxa weeye saaxiibkayga oo marka igu weyn oo kale waa marka friend of mine waxa la saaxiibkaada kugu weyn waa marka isku dhow yihiin at the department store bakhaarka waaxda bakhaarka ayaan mataqaanaa ama qaybta bakhaarka ayaan saaxiibkayga kula kulmi rabaa marka intaas I'm going to meet a friend of mine at the department store. macna u socdaa inaan la kulmo saaxiibkayga oo aan kula kulmo waaxda ama qaybta bakhaarka wax lagu iibiyo meesha bakhaar store waxa la yiraahdaa meesha wax lagu iibiyo marka ayaa la yiraahdaa bakhaarka. Going to do a little shopping waxaad u socotaa marka going to do a little shopping waxaad u socotaa inaad wax soo gadato marka going to do a little or a little shopping waxa weeye macna waxaad u socotaa inaad soo samaysatid shopping miyaad u socotaa marka inaad wax soo gadatid ama wax soo iibsatid miyaad u socotaa marka shopping waxa la yiraahdaa yani Soomaali nafta marka qaar waan isticmaalnaa waxa dhahnaa shopping aan u socdaa shopping waxa weeye markii wax soo iibsanaysid waa marka ay tiri marka iyo yes iyo waxaas oo dhan waa isku macno marka waxa weeye waaye marka I have to buy some presents for my parents marka ay tiri I have to buy marka waa inaan u soo iibiyaa some presents waxa la yiraahdaa hadiido marka hadiyad inaan u soo iibiyo for my parents waalidiinteeda marka waxay tiri waxaan u socdaa shoppingka marka weydiiyey shoppingka miyaad u socotaa I have to buy ay tiri I have to buy waa inaan u soo iibiyaa to buy waxa waaye ereyga buy waxa waaye waa soo iibsasho marka some presents xoogaha marka hadiida ah inaan u soo iibiyo for my parents waalidiinteeda marka waalidiinteeda ayaan marka doonayaa inaan u soo iibiyo hadiido waa marka what is the occasion marka what is the occasion waxa la yiraahdaa markii ay jirto ma garanaysaa munaasabad oo kale ama wax ay jiraan yani wax marka ay jiraan
dhacdooyin muhiim ku ah familiga ama wax ay jiraan ayaa la yidhahdaa marka occasion. Marka waxay tiri what is the occasion marka munaasabada jirta maxay tahay maadaama hadiyadii iyo waxa soo iibinaysid maxay tahay occasionka jira muxuu yahay munaasabada jirta maxay tahay it is their anniversary marka waxay tiri marka it is their anniversary waa waxa weeye sanad guuridooda marka it is their anniversary waxa weeye yani sanad guuridooda anniversary waxa la yidhahdaa sanad guuro that is great taasi waa arrin marka weyn waa marka that is great arrin weyn waa marka arrinkaas great waxa weeye wixii la qiimeynayo wixii la weyneynayo ayaa loo isticmaala marka well hagaag you better get going marka waa inaad tagtaa waa marka okay hagaag waa inaad marka baxdaa ay noqonaysaa intaas you better get going waxa wanaagsan inaad tagtid ama aad baxdid you don't want it to be late uma baahnid inaad dib dhacdo marka inaad daahdid oo meesha aad ku dahdo you don't wanna waxa ma doonaysid waaye to be late inaad dahdo yani uma baahnid waa marka intaas Soomaali ahaan I will see you next time waxaan is arki doonaa marka ama ku arki doonaa next time waqtiga xiga marka sure waxa weeye qubaal by yani waxa waaye jaw oo kale waaye ama by waxa la dhihi karaa nabadgelyo la dhihi karaa marka Soomaali waxay tiri waqti kale is arki doonaa marka sidaa darteed nabadgelyo marka tan kale waxay tiri ama qofka kale waxa uu yiri sure qubaal by waxa weeye nabaday ama mar kale ayaan is arki doonaa marka by waxaan ku fasiray by waxa waa by ama marka qofka la macsalaamayo macsalaam oo kale marka Soomaali marka halkan waa keywordska casharka aan is iri waa ereyada ugu muhiimsan marka ayaan af Soomaali ahaan ku fasiray maadaama casharkaas uu dheeraa hal big ma qaadi karo in lagu qoro Ingiriiska iyo Soomaaliga marka ereyasha ugu muhiimsan ayaan si gooni ah af Soomaali ahaan ugu soo qoray halkan marka waxaan dhahnay words from the lesson ereyasha aan ka soo xulay casharka marka dhinacan oo bidixda ah waa English dhanka midigtana waa af Soomaali not too bad waxaan ku fasirnay aad uma xuma markii arrin lagu weydiiyo ayaa waa qaababka lagu jawaab qaab ka mid ah marka waxay hagaagsan yihiin not too bad ayaa la leeyahay marka ma xuma ama aad uma xuma intaas ay noqonaysaa Soomaali ahaan weather waxa weeye hawada markii laga hadlayo ayaa loo isticmaalaa marka weather ayaa la yidhahdaa marka hawada absolutely waxaan ku fasirnay yani wax joogto ah si aad iyo aad ah yani absolutely waxa weeye si aad iyo aad ah waaye frequently waxaan ula jeedaa wax mar walba dhaca ama had iyo jeer ayaa la dhihi karaa marka friend of mine waxa weeye waa qof saaxiib oo agtaada qiimo ku leh ama kugu dhow isku dhow yihiin ayaa la yidhaha friend of mine department store waxa weeye bakhaarka wax lagu iibiyo ereyga department waxa weeye waa waax Soomaali ahaan waax ama qeyb ayaa la dhihi karaa marka waxooyin kala duwan ayaa meel walba ay leedahay laakiin hadda department of store waxa weeye yani meesha ama qeybta wax lagu iibiyo ayaa la yidhahdaa marka store waxa weeye bakhaar weeye marka si ahaan present ereyga present sidiisaba waa hadiyad laakiin hadda jamac isaas ka dhigtay presents waxa weeye waa hadiyado marka occasion waxa weeye munaasabad markii wax la qiimeynayo ayaa la yidhahdaa marka munaasabad anniversary waxa weeye waa sanad guuro markii garanaysaa haddii waddan taariikhda uu xorriyadda qaatay oo kale ama dhalashadaadii oo kale ama yani hadba dadka waxay ku xiran tahay waxyaaba ay xusaan ay ku xiran tahay marka anniversary waxaan dhahnay waa sanad guuro marka casharkii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa
casharka waa u dheeraa laakiin waxaan rajeynayaa in dad badan ay ka faa'iidaystaan casharkan. intii cashar kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. haddii aad ka heshay casharkan fadlan channelkan subscribe dheh, asxaabtaada la wadaag. marka waxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.